Peter Hellis oo ka sameeyay AI-ga $1 million iyo waliba ka badan dhowrkii bilood la soo dhaafay. Mid application-kaas yar uu ku dhisay AI-ga ee Cal AI waqti xaadirkan aynu joogneen idinla hadlayo bishii wuxuu generate gareeyaa ama soo saaraa in ka badan malaayiin dollar. 5 million. saaxiibayaal dadka qaar ayaa AI ka samaynaya malaayiin dollar iyo kumanaan dollar. Ma hadlayno 10 sano ka hor, kama hadlayno maalin maalmaha ka mid ah ee waxaan ka hadlaynaa waqti xaadirkan hadda taagan. dadka qaar ayaa ka samaynaya intaasoo lacag. qaybta ugu xiisaha badan leh ayaa waxay weliba sii tahay dadkaasi ma ahan dad software engineers ah, dad programming background leh oo wax programmiya kaliya waxay fahmeen hal sir oo ay ka midaysan yihiin. halkaas sir oo ah AI-ga ayay wax ku qabsadeen. marka maanta saaxiibayaal waxaynu isla eegi doonaa tusaalooyin xaqiiqo ah tiraba 5 qof. dadkaas ayaynu magacyadooda qaabkay lacagta ku sameeyeen istaraatiijiyadda isticmaaleen si aan u koobiyeyno maadaama AI uu qof walbaaba u furan yahay iyo waliba lacagta ay ka sameeyeen ayaynu isla eegi. aynu ku bilowno yarkan loo yaqaan Yadegari. yarkan dhalinyarada ah wuxuu dhisay application uu AI ku dhisay oo loo yaqaano Cal AI. application Cal AI cuntooyinkaad cunayso ayaad sawir ka qaadaysaa kadibna wuxuu kuu calculate garaynayaa calorieska ku jira, inta fat ku jira, proteinka ku jira, waxyaabahaas oo dhan ayuu ku calculate garaynaya isagoona waliba backgroundkiisuna programming ahayn. wuxuu kaliya ku fikiray waa fikrad aad u fudud laakiin demand fara badan yeelanaysa oo dad badan ay u baahanayaan. kadib application-kaas yar uu ku dhisay AI-ga ee Cal AI waqti xaadirkan aynu joogneen idinla hadlayo bishii wuxuu generate gareeyaa ama soo saaraa in ka badan malaayiin dollar. adiguna markaa waad samayn kartaa in aad simple idea aad ku fikirto kadibna adigoo AI isticmaalaya adoona background programming lahayn application-kaas oo kale aad soo saarto kaas oo kuu generate garayn kara malaayiin dollar iyo in ka badan sida ninkan Sack oo kale. marka isagu muxuu sameeyey? wuxuuna lacagta malaayiinka dollar uu bishii ku sameeyey kaliya hal mushkilad ayuu xaliyey oo ah weight loss. dadkii weight loss-ka u baahan in calorieskooda iyo waxyaabahooda sawir yar ay qaadeen oo application-kaas uu calculate gareeyo. muxuuna sameeyey si uu markaa dadka ku baro? kaliya wuxuu isticmaalay videos TikTok ah iyo videos yar oo reels oo gaagaaban si uu dadkii ugu sheego application-ka. casharka aynu ka baranayna markaa muxuu yahay Sack? haddii uu AI-gu uu solve garayn karo uu xalin karo problem, maxaa kuu diiday adigana inaad problem taaganaad ka fikirto oo aad wax ka dhisto kadibna uu application-kaas ama waxaad dhistay uu lacag kuu generate gareeyo? saaxiibayaal qofkan kale aynu soo qaadanayno waxa weeye Peter Hellis oo ka sameeyay AI-ga $1 million iyo waliba ka badan dhowrkii bilood la soo dhaafay. Peter Hellis kaliya wuxuu sameeyay AI tools aad iyo aad u fudud kuwaas oo bishii u generate gareeya subscription ahaan lacag oo aad iyo aad fara badan oo uu ka sameeyay malaayiin. wuxuu sameeyay kaliya wuxuu ku fikiray AI tool kadibna wuxuu ku xiray AI toolkii subscription in dadku ay bishii ka faa'iideystaan oo bishii isagna uu lacag ka qaado. AI projectskiisa marka uu sameeyay qaarkood ayaa u sameeyay marka malaayiin dollar iyo waliba ka badan. AI toolskiisaas ayuu markii hore sameeyay xaysiino fara badan ayuu geliyay isla markiiba dad fara badan ayaa ka helay oo ku soo xidhmay AI toolska. shakhsigan xiga waxa loo yaqaanaa Lyle McWell waa AI influencer. haddaba sheekadani waa sheeko xiiso leh. haddii aan ku idhaahdo ka waran Lyle maba ahanba qof jira kaliya waxa weeyaan virtual AI influencer. qof ayaa sameeyay influencerkaas Lyle loogu magac daray kadibna waxay brands-ka waaweyn u xayeysiisaa dharkooda iyo waliba agabyada kale loo baahan yahay. and she's not even real. shakhsi ma ahan jira oo sax ah. Instagram-kay wax ku soo baahisaa qofkaas ayaa samaystay lacag fara badan ayayna bishii generate garaysaa. waxayna waliba lacag fara badan ka samaysaa brand deals iyadoo samaynaysa, music deals iyadoo samaynaysa iyo waliba sponsorships oo sponsor ay samaynayso. and she's not even real person. mana ahan waliba shakhsi dhab ah tan kula ka waran. adiguna markaa AI influencer waa samayn kartaa oo software fara badan oo AI oo lagu sameeyo ayaa jira. Instagram iyo wax walba waad u samayn kartaa iyadoo waliba brands-ka wax u xayeysiinaysa. ka sii daran ayaa waxay tahay companies-ka waaweyn lacag fara badan ayay ku bixiyaan per post uu AI influencer ka yari ay soo dhigayso gabadhaas. qofka kale aynu soo qaadanayno waxa weeye Aitana Lopez. iyaduna sidoo kale sidii AI virtual-kii hore influencer-ka ka soo sheekaynay iyada laftirkeedu ma ahan real person. waa another AI virtual influencer kale. iyaduna waxa ay samaysaa celcelis bil kasta $10,000 iyo waliba in ka badan.
virtualiskan ama AI influencerskan aan ka hadlayo haddii magacyadooda imika aan kuu sheegaan Instagramka ku aragto waxaad arkaysaa videoiska iyo brandiska ay wax u xayeysiiyaan iyo qaab walba iyo xaysiis walba ay helaan Instagramkooda ayaad ku arkaysaa haddii aad raadiso tan labaad ee aanu ka hadlayno iyadna influencerka bishii waxay soo saartaa bay 10,000 iyo weliba wax cashirka aynu ka baranayna maxay tahay marka AI influencerskan virtualka uma baahnin qaabkii hore ee businessyadu ay qof u raadin jireen model iyo waxyaabahaas simply AI avatariskan ayaaba digital products fara badan xayeysiin kara oo kambaniye fara badanna markay arkaan halka AI inuu deals fara badan uu helay iyaguna ay u dhiibanayaan dharkoodii iyo waxooda kadibna ay saasoo kale u sameynayaan AI avatarkaasi adiga maxaa kaa horjooganaad AI avatariska aad samayso koobigooda Instagram aad u samayso TikTokna aad u samayso brandiska qaar aad xayeysiin free ah u samayso halkaasna aad ka dhex qaraabo qofka shanaad ee saaxiibayana soo qaadanayna waxaa loo yaqaanaa Liam Otley waa nin iska leh kambaniga loo yaqaano Moniside oo sameeya AI agency-ga iyo AI automationka waxa uu generate gareeyay oo samaystay malaayiin dollar kan kale isagna kulli faaqanaynu soo qaadanayna magaciisa waxaa loo yaqaanaa Nick Schreff isagna sidoo kale waa nin ku taajiray oo 100,000 iyo ka badan ka sameeya AI automation uu sameeyo simply waxaan markaa idin sheegay waxay tahay businesses waagi hore waxyaabaha ay eegi jireen caalamka waa laga soo gudbay oo fursad qof walbaaba u furan oo waqti xaadirkan aan ku dhiirigelin lahayn oo AI-ga barto ayaana u furan dadkaas waxyaabaha ay sameeyeen haddii waqti aad geliso waad samayn kartaa oo waa wax kuu furan inaad adiguna aad samayso dadka kale waxaa jira iyagna bishii 5,000 2,000 ka sameeya AI content creation ay sameynayaan sidoo kale chatbots yar oo ay dhisayaan businessyada automation yar u sameynayaan sidoo kale iyagoo sameynaya AI consult dadkaasi markaa maxay ka sameeyeen toolskii ay barteen AI-ga problems taagan ay arkeen oo ay xaliyeen value walba ama wax walba oo ay dhisayaan lacag ayay ka qaadaan maadaama ay fursadahaasi saa u ballaaran yihiin oo thousands of people ay soo bixi doonaan waxaan idinku dhiirigelin lahaa inaad AI-ga barataan website-keena hirgeli AI waxa aad ka baran kartaa waxyaabahaas aan sheegayo oo bilaash ah sidoo kalena course ayaynu wadnaa oo si free ah dadku ay ugu baranayaan AI toolska iyo AI automationka inta waqti xaadirkan dunidu sidii hore way ka guuraysaa oo si cusub ayay u guuraysaa videogan waxaa sponsor gareeyay applicationka all in one Safari app haddii aad joogto East Africa Kenya Tanzania Uganda iyo haddii aad joogto Soomaaliya Muqdisho iyo waliba gobolada intaba iyo hadda joogto Somaliland iyo hadda joogto UK applicationkan waxaad ka dalban kartaa wax kasta oo u baahan tahay gurigaagana waa lagu keenaya taxi baad dalban kartaa restaurant baad cunto ka dalban kartaa diiwaan gashan mudsiyada joogto bajaaj ayaad dalban kartaa raashin ayaad bakhaar ka dalban kartaa sidoo kale motor falcon wixii aad rabto waad dalban kartaa oo niyadaada kugu soo dhaca applicationka soo dejista and start using it gurigaagana waxa lagu keenaa